dadka qaar marka waxay isweydiiyaan waxa ay ku kala duwan yihiin ama farqiga u dhaxeeyo waxa la yiraahdo fahamka iyo waxa la yiraahdo siihaynta. Waxa la yiraahdo fahamka waa maxay? fahamka waxa la yiraahdaa si fudud marka u qeexno qormo marka akhrinaysid isla markaas akhrinaysid haddii aad dhuuxaysid oo aad fahmaysid oo ay kugu socoto oo aad ku raaxaysanaysid taas waxa la yiraahdaa fahamka. luqadda qalaadna waxa lagu yiraahdaa comprehension. tusaale haddii aan soo qaadano buug sheeko ah akhrinaysay, buugaas sheekada ah marka akhrinaysa wuu kugu socdaa waa dhuuxaysaa oo ku raaxaysanaysaa akhriskiisana ma ka daaloosid taas waxa la yiraahdaa qormadii waa fahmaysaa. balse waxa dhici karto buugaas ay sidaas u akhrisay daqiiqado ama maalmo yar kadib hadduu qof wax ka weydiiyo inaad wax badan ka xasuusan weysid. qodobka labaad ee ah marka siihayn oo luqadda qalaad lagu yiraahdo retention wax kale ma ahan ee markii aan qeexno wuxuu noqonayaa awoodda siihaynta macluumaad, awoodda dib u xasuusashada macluumaad aad akhrisay retention. saa daraadeeda labadoodu waa muhiim markii loo joogo wax akhrinta horumarka leh. haddii aad waxa aad akhrinaysid ay ka yihiin bal uun iska akhri macno badan ma ku sameynayaan labadan qodob, balse haddii ay ka tahay wax mustaqbalka aad rabtid inay ku anfacaan waa muhiim in labada laga helo. marka ugu horeyso comprehension oo waxa akhrinaysid inaad fahantid, marka labaadna retention inaad kari kartid inaad dib u xasuusatid. si gaar ah haddii aad u imaano comprehensionka ama fahamka waxa aad akhrinaysid sidee ku horumarin karnaa waxyaabaha ay akhrinayno maalin walba. haddii jawaabta aad ku siiyo arintaas waxa ka caawin karto marka ugu horeyso in aad isbedel ku sameysid xawaaraha akhrintaada. xawaaraha akhrintaada marna inaad ziyaadisid marna inaad hoos u dhigtid. taas maxaa looga jeedaa? xawaaraha akhriska waxaa muhiim ah inaad hoos u dhigtid marka aad bilaabaysid baragraaf ama sadarro cusub marka aad bilaabaysid. sababtu waa maxay? sababtu waxay tahay inta badan buugaagta la qoro ama qormooyinka la qoro noocay doonaan ha ahaadaan sadarrada bilowgooda waxaa lagu sheegaa xogta muhiimka ah. saa daraadeed waxaan kugula talinayaa marka aad akhrinaysid sadar bilowgiisa ha ku degdegin ee u akhrisid tartiib ah. kadib marka aad qaybta dhexe aadid oo qaybta dhexe ee baragraafka markaa maraysid xawaaraha akhriskaaga ziyaadi. taas waxay kaa caawin doontaa fahamkaaga inuu si aanan caadi ahayn kor ugu kaco. farsamadan marka maxaa waaye gunaanudkeeda marnaba ha isku dayin speed ama xawaare isla mid ah inaad qormo dhammaystiran ku akhrisid. taas waxay hoos u dhigaysaa ama ay kaa qaldaysaa fahamkaaga. mar walba ku dadaal marna inaad hoos u dhigtid marna inaad kor u qaadid sida aan hadda kuu soo sheegayba. qaybtan waxaa ku baranaynaa farsamada la yiraahdo akhri ee dib u xasuuso. weligaa ma kugu dhacday ama ma la yaabtay in aad qormo akhrisay waqti dheer uu kaaga baxay kadibna gabagabada qormadii ee aad isweydiisay war waa maxay niyo wax badan faham badan ma iga bixin, macluumaad badan ma iga bixin, concept badan ma ka helin wixii aad akhriyay. sababtu maxay tahay? halkan waxaan kugu siin doonaa leyli aad ku baratikeyn kartid akhrinta iyo dib u xasuusashada adigoo markaas heer sare ka gaari doono insha Allah. qaab leylintan run ahaantii aad iyo aad ay u fududahay isla markaasna waa wax ku ool wax badan ayay ka bedeli doontaa. soo qaado qormo aad rabtid inaad akhrisid si aad guul uga gaartid, ha noqoto buug ama wax kalaba wax markaas adiga ku raaxaysanaysid noo soo qaad. bilow marka qormadii aad soo qaadatay markaas adiga oo ku jaangooynayo awoodda ama xawaaraha akhriskaaga. waxaan la jeedaa soo qaado qormo ma rabi inaad meel gaar ah ku geey aan ku dhaho. haddii ay tahay awooddaada in aad akhrin kartid isla markaasna aad fahmi kartid hal page akhri. haddii ay tahay nus page, haddii ay tahay baragraaf hal sadar wixii markaas aad akhrin kartid oo aad fahamkaaga ku saleyn kartid akhri adigoo fahmayo waa muhiim qodobkan. kadib marka qodobkaa raba hadda imaano note ka sameey quick note. note waa maxay? qormo yar ka sameey ama draft waxa la yiraahdaba. qormada bilow akhri marka akhrisid meesha adiga is leedahay ilaa halaha note yar waa ka sameyn kartaa kadibna note ka sameey. note marka aad sameynaysid ma ahan note ama qormo wixii aad soo akhriso dhan aad qoraysid ma rabno anaga. waxaan rabnaa xogta muhiimka ah ama conceptiga ugu muhiimsan ee qormadaas ku jiro inaad noo draft garaysid kaliya. okay note-kaas oo quick ah ama degdeg ah markii aad sameysid ka soco qormadaas. qormada kale u gudubno ama bogga kale intaas akhrisay ku joogto ka soco macna. kadibna mar kale note kale ka sameey. akhri note yar ka sameey. akhri note yar ka sameey. arintan aad iyo aad ay muhiim u tahay runtii. maxaa yeelay waxay daawo u tahay dhibaatada ugu badan ee haysato dhalinyaradeenna oo ah focus la'aanta, diirad saarid la'aanta. yani waxaa dhib badan ugu hayo waxa akhrinayna diirad ma saarno. marka aan rabno inaan note ka sameyno diirada saarayna waxa akhrinayno. arintaasna waxay kor u qaadaysaa awoodda soo jeedka maskaxdeena
iyo la haysashada waxaas ay akhrinayso markaas attention-kaaga ayay soo jeedinaysaa waxaa kugula talinaya marka arrintan inaad practice ku samaysid muddo 15 daqiiqo ah maalin walba muddo 2 isbuuc ugu yaraan haddii awoodda wax qoristaada ama awoodda nood qaadashadaada xitaa ay xun tahay nafsadaada ku dhib nafsada wax walba la bari karaa soo maahan nafsadaada ku dhib waxaa gaari doontaa awoodda xasuusashada iyo awoodda isbiid akhrintaada intaba way ziyaadayaan maxaa yeelay wixii waa qorowsaa isla markaasna waa akhrinaysaa isla markaasna waa qorowsaa saa daraadeeda laba method oo muhiim ah isticmaaloosaa maskaxdaadana wixii way ku dhagayaan waxaa jirto marka qaacido dhahayso if you are not paying attention you will not be able to remember waxayna leedahay haddii aadan foojignaanta siinaynin ma laga yaabo mana dhici karto marnaba inaad soo xasuusatid tan waxaa la mid ah weligaa ma kugu dhacday qofka hadda isbarateen oo aad isgacan qaadeen oo magaciisa kuu sheegay in daqiiqada yar gudahooda idinkoonan kala tegin xitaa in magaciisa ay looday sababtu waa maxay wax kale ma ahan foojignaantaada ma siinin maadan soo jeedin attention ma siinin saa daraadeed ma xasuusan kartid okay qodobkaas aad iyo aad uu muhiim u yahay waxaana la yiraahdaa akhri oo dib u xasuuso farsamadan haddii ay ciyaartid oo aan nafsadaadana bartid waxayna kaa dhigi doontaa qof xawaaraha akhriskiisa awoodda dib u xasuusashadiisa iyo fahamka akhrintiisa intaba guulo badan ka gaaro insha allah qaybtan waxaa uga hadlaynaa xasuusta wax la yiraahdo ama memory hab xasuuseedka runtii aad ayuu muhiim ugu yahay marka laga hadlayo wax akhrinta marka sidee dib ugu xasuusan karnaa macluumaadkii aan akhrinay ama aan baranay kadibna hadhow dib ula soo bixi karnaa oo isticmaali karnaa xilliga u baahano hadday tahay imtixaan iyo haddii ay tahay meelo kaleba ka hor jawaabta su-aashaas waxaa u baahannahay inaan isla fahamno noocyada ay ka kooban tahay xasuusta waxaa loo kala qaadaa ilaa 3 qaybood oo muhiim ah qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa xasuusta dareemayaasha qaybta labaad waxaa la yiraahdaa xasuusta waqtiga gaaban qaybta saddexaadna waxaa la yiraahdaa xasuusta waqtiga dheer haddii aan ku bilowno xasuusta dareemayaasha waxay ka kooban tahay ilaa 5 dareeme dareemayaasha aan leenahay ee loo yaqaano 5 sense organs oo kala ah xasuusta dareemaha maqalka dareemaha urka dareemaha dhadhanka dareemaha aragga iyo dareemaha taabashada 5taas qayb ayay ka kooban tahay haddii aan ku dabaqno wax akhrinteena waxaa dhici karto adiga oo ma arkino barfuun ama carfiso nooc gaar ah ay ku buufsan tahay qolka hadda koor inaad wax akhrisay waxaas markii aad xasuusatid ama aad meel ku aragtid inay kugu soo dhacayso carfisadaas ama wixii markaas carfayay aragtida waxa waaye waxyaabo badan aragga lagu bartaa maqalka wax badan lagu bartaa kadibna lagu xasuustaa balse xasuusta noocan ah oo xasuusta dareemayaasha loo yaqaan waa waqti gaaban waqtigeedu wuu gaaban yahay yani ma u baahno process dheer in la kaydiyo ma u baahno hal mar u baahan tahay inaad la kulantid ee wax ku soo uraan hal mar inaad wax maqashid weliba sakanay wax ka yar isla markaasna waa la record gareynaa ama maskaxda loo diraa aadayna muhiim ugu tahay marka la joogo waxbarashada ama wax akhriska haddii aan u gudubno qaybta labaad ee xasuusta ah oo loo yaqaan xasuusta gaaban runtii in badan oo laga mid ah waa isticmaalnaa wax kale ma ahan ee waa xasuusta tusaalaha ugu dhow numberka kale qof saaxiibka ah oo ama saaxiibta telefoon ku hadlaysa waxay ku dhahday in hal mar numberkan ii qor isla marka telefoonka ma rabtid maskaxda ii sheega leedahay maskaxda ka qabanay numberkii xasuusta noocaas oo loo yaqaan xasuusta gaaban waa active awoodeedu way sareysaa wax walba xifdin kartaa balse faa'iido daradeeda ayaa waxay tahay waa seconds daqiiqad xataa ma dhamo sakana kadib waxa waa iloobaysaa sakanadaasna waa ilaa qiyaas ahaan 18 ilaa 30 second intuu dhaxayso xasuusta ugu dambaysa ee loo yaqaano long term memory ama xasuusta waqtiga dheer waa tan ugu muhiimsan marka waxbarashada la joogo iyo xifdinta iyo wax akhrinta intaba xasuustan wixii aad baratay waa la process gareynayaa maskaxda qaybteeda dambe ayaa loo dhiibayaa sanado kadib bilo kadib wixii dib waa ula soo bixi kartaa waa u isticmaali kartaa waa u xasuusan kartaa aad iyo aadayna muhiim ugu tahay marka la joogo akhriska iyo waxbarashada guud ahaan xasuusta noocaana marka waxay u baahan tahay horumarin waxaa lagu horumarin karaa waxa loo yaqaan repetition ku celcelin annagoo isticmaalayno labada hab ee hore u soo baranay habka koowaad muxuu ahaa habka akhrinta badan iyo weliba habka akhrinta iyo dib u xasuusashada labadaas hab oo la isku geeyay ayaa waxay noo abuuri karaan ama ay noo horseedi karaan yacni xasuus waqti dheer wax walba oo habkaas u marnay in aanan weligeen iloobinba hab akhrinta badan marka waxay ahayd in wax marka ugu horeysa aan eegno marka labaad aan gudmar ku sameeyno marka saddexaadna aan akhrino soo maahan xasuustii akhri ee dib u xasuusana maxay ahayd akhri waxaan isla markaasna note yar ka sameeyay ka waran marka haddii labada qayb aan isku geyno labada qayb oo isku geysid maxsuulka ka dhalan kara wuxuu noqonayaa 6 mar adigu ku celiyay
واو والله يا بنتها سومان لحمر سي ونقني لحمر waxay u noqonaysaa soo qabso marka ugu horeyso eegisa ku sameysay eegis adigoo fiirinayo hordhici iyo gunaanudkii note ka sameysay fiiriya waa yani akhri iyo xasuusa ku dabaqday okay qaybta labaad oo umaaday oo ah guud markii yaa sameysay adigoo fiirinayo ciwaan hoosaadyaasha iyo qaybaha oo farta boldi ku qoran haddana note ka sameysay mar labaad note sameynaysa laba mar wax akhrisay iyo laba mar oo note sameysay markaan okay markuu ugu dambeeyay macluumaadkii toos u gashay waa wada akhrisay isla markaas note badan ka sameysay meeqa mar ay noqonay 6 mar ay noqonay oo ka kooban 3 mar oo akhrin ah iyo 3 mar oo note qaadasho ah wixii sidaas oo akhrisay runtii weliga ma iloobi doontid yoolka marka lagu gaari karo xasuusta noocaas maxaa waaye haddii aad rabtid in xasuustaas dheer ay yeelatid waxaa u baahan tahay inaad mar badan ku celisid adigoo isticmaalaya qaab smart ah buuga bilow inaad ka bilowdid ilaa dhamaadka akhrisid haddana bilow inaad ka bilowdid ilaa dhamaadka akhrisid qaabkaas ma ugu celcelin kartid aad ay u dhib badan tahay laakiin qaabkan smartiga ah haddii aad isticmaashid akhriskan wuu ku fududaanaa waana ku raaxaysanay qaybtan waxaa iskula arkaynaa waxa loo yaqaano mabaadi'da xusuusta runtii ilaa 5 qaybood ayaa lagu soo koobaa markaa fiirino si markaas xusuustaada ay sare ugu marto wax walba markaas aad akhrisidna aad u xasuustid waxaa u baahan tahay ugu horeyn ku celcelin adigoo isticmaalayo qaababka hore aan usoo sheegnay sida hab akhriska badan iyo weliba akhrinta iyo dib u xusuusashada labadaas hab aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waxaa kaloo naga caawin karo xusuusteena iyo waxa markaas aan akhrinay inaan dib u xasuusanno in wixii aan akhrinay markaas aan baranay ama fahanay inaan dad kale barno ama dad kale ka horjeedino dad kale u sheegno dad kale hortooda aan ka jeedino arintaas aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxayna soo galaysaa waxyaabaha kordhin karo in xusuustaada ama wixii markaas aad akhrisay aadan iloobin marnaba waxayna qayb ka tahay qaabka ku celcelinta kaas wuxuu ahaa qodobka koowaad qodobka labaad ee ka mid ah mabaadi'da xusuusta waxaa waaye muuqaalka waxa aad baranaysid markaas ama waxa aad rabtid inaad akhrisid inaad ku heshid qaab muuqaal ah haddii ahaan lahayd sawir ama video waxaa la hubaa markaas wixii qaabkaas aad ku aragtid oo ama sawirkooda aragtid ama muuqaalkooda aragtid inaadan weligaa dambe iloobaynin haddii marka labadaba ay meesha oolin oo aadan haysanin waxaa samayn kartaa imagination adiga maskaxdaada inaad ka mala awaalatid oo sawiratid waxaas markaas aad akhrinaysid haddii maroodi aad akhrinaysid oo kale fayn dheer oo leeyahay lugo waaweyn oo leeyahay intaasoo mitir oo kor jira saas u yaalaa okay haddii aadan heli karin yani sawir inaad maskaxdaada aad ka mala awaalatid aad iyo aad ay muhiim u tahay arrintaas waxayna kaa caawin kartaa xusuustaada in ay ku sara marto aadan iloobin waxa markaas aad akhrinaysid qodobka saddexaad marka wuxuu noqonayaa in bunbuunin aad ku samaysid tusaale waxba akhrinaysay sawir waa ka heshay ama ma ka helinba sawir haddii aad ka heshay haddii aadan ka helin qodobka labaad uu daba socdaa in aad samaysid wixii aad maskaxdaada ku bunbuunisid waxaan haddii ay yihiin wax weyn oo markaas laga sheekeynayo si in ay yihiin wax weyn oo kale maskaxdaada inaad ugu sheegtid haddii ay yihiin wax yar inay yihiin maskaxdaada inaad ugu sheegtid ma fahantay qodobkaas aad uu muhiim u yahay waxaa la yiraahdaa exaggeration waa la dhahaa luqadda qalaad okay qodobka afaraad marka ee wixii aad ku xasuusan kartid waxaa ka mid ah isla xiriirin inaad samaysid tusaale waxba akhrinaysaa hadda waxaas maadan aqoonin waxba hore u taqaanay waxaas aad hore u taqaanay inaad la xiriirisid haddii dabeecadaha ama calaamadaha ama waxyaabaha hadda aad akhrinaysid ay jiraan wax aad ku xasuusan kartid aad ku fahmi kartid oo adiga hore u taqaanay inaad la xiriirisid waxaas association ayaa la qaabkaasna aad uu muhiim u yahay xusuustaadana uu ka caawin karaa qodobka shanaad ee ka caawin karo xusuusta waxaa ka mid ah ama waxaa la yiraahdaa ururin ama nidaamin macluumaadka aad akhrinaysid inaad nidaaminsid qodobkan wuxuu aad ku caawin doonaa waxa aad akhrinaysid haddii ay wax aad u fara badan tusaale jabtar dheer akhrinaysa bagaga uu ka kooban yahay aad u fara badan yihiin tusaale jabtarkaas konton bag waaye kontonkaas bag marka hal mar inaad qabatid ma wada akhrin kartid haddii aad sidaas samaysidna xasuustaada yani ma ku wanaagsananayso waxaa yeeli kartaa marka in sub chapters aad u samaysid chapterkan konton page ah mugtay 5 qayb oo kale ugu yaraan inaad u kala qaadid 5taas qaybood qayb walba oo ciwaan leh oo qaybo kala duwan leh yani aad sidaas samaysid kadibna aad ku dabaqdid qaacidadii ama farsamadii hore aad u soo aragnay oo ahayd habka wax akhrinta badan aad iyo aad u muhiim u yahay adigoo kala qaadaya marka ugu horeyso inaad eegis ku samaysid introduction iyo conclusion maxaa ku sameynaysaa markaas subchapters aad samaysid macnaha 5 qaybood ee u kala qaaday ayaa qayb soo qabo eegis ku samay kadibna guud markuu sameey kadibna akhri qaybta labaad soo qabo eegis ku sameey guud markuu sameey kadibna akhri haddii sidaas aad sameysay
macluumaadkii waa isku nidaamisay kadibna wax fudud ay ku noqonayaan oo ku raaxaysatid haddii qaabkaas u akhrisidna weligaa dambe ma iloobi doontid insha Allah marar badan waxaa nagu dhacdo anagoo qormo akhrinayno in ay naga hor imaado caqabad sida erey ku guda jiro jumladaas inaan fahmi weyno waaw dad badan ayuu ma arkin oo arrintan ay qabsataa soo ma ahan sidee u xalin karnaa xaaladaas haddii ayna soo wajahdo marka jawaabtu waa kana haddii caqabadaas oo kale ay kugu timaado adigoo akhrinaysid qormo marnaba ha istaajinin qormadaas ay akhrinaysay horey u soco wad isku day inaad dhammaysid waxaa laga yaabaa oo sida badanna dhacdaba ereygaas aa fahmi weysay macnihiisa inuu ku guda jiro jumladda oo jumladaas haddii aad dhammaystirtid ereygaas macnihiisa aa fahmi doontid badanaa qaabkaas ayaa dhacdo laakiin haddii markaas jumladii aad dhammaystirno oo aa ereygiina fahmi weyno maxaa samaynaynaa waa tanaa farsamada marka farsamadan waxaa la yidhaahdaa haddii aa af soomaaliyeeyo farsamada dhawaq la mid ah qaabkaas ayaa ku af soomaaliyey aniga laakiin luqadda qalaad waxay yiraahdaan similar sound technique similar sound technique maxaa waaye marar badan marka aan wax akhrinayno waxaa dhacdo erey nagu cusub ereygaas nagu cusub marka waxaa dhacdo in aan fahmi weyno soo maahan okay ereygaas kaligiis meel ku qor amaba hoos ka xariiq u raadi ma jiraa qaabka loogu dhawaaqayo ereygaas wax la mid ah oo adiga aad taqaanid ama wax xiriir aad la samayn kartid oo ereygan si aad u soo xasuustid berri isweydii caadiyan in badan way dhacdaa arrintan marka iskuulada iyo jaamacadaha la dhiganayo ardayda in ay erayo ku cusub arkaan kadibna ay ma arkino erey kale u raadiyaan ay ku xasuustaan macnaha soo maahan okay hadda waxyaabaha xasuusanaya waxaa ka mid ah erey asma waa naqaanaa ama dadka neefta qabaa la yidhahdaa maadaama annaga aa caafimaad nahay tusaalahaas hadda xasuusan karaa asma neefta dadka qabaan see loo daaweeyaa asma marar badan markii la fikiray asma daawadeeda waa asma yani waxyaabaha soo gaabinay ahayd oo aa xasuusto marka maxaa ku gaabin jirnay eeda waxay u taagan tahay anti adrenergic esta waxay u taagan tahay steroid tida waxay u taagan tahay theophylline daawada la yiraahdo asma waa mugtahay eshta waxay u taagan tahay hydration qofka in biyo badan uu qaato ma-da markii loo yimaado emta waxay u taagan tahay masked with oxygen eedan waxay u taagan tahay anticholinergic waxyaabaha xasuusanaya ay ka mid tahay haddii marka balse aa u wareegno ereygan hadda meesha noogu qoran fiiriya waxaa waaye belonophobia ereygan waxaa la yidhahdaa yacni dadka ka cabsado waxyaabaha mudaca ah ama sharp objectska waxyaabaha la yidhaahdo sida cirbadaha mindiyaha iyo wixii la midka ah saa daraaddeeda marka qaab aa usoo xasuusana haddii aa fiirino ereygan waxaa dhihi karnaa belonophobia ereyga koowaad haddii aa fiirino belone soomaan belon aa soo xasuuso kusoo xasuuso belon maxaa la yidhahdaa buufin belonophobia si ereygan mar dambe oodan u iloobin buufinka sawiro oo ka cabsanaya cirbad in lagu mudo buufin haddii cirbad lagu mudo maxaa dhacaya wuu baqaa soomaan saa daraaddeeda belonophobia buufinka wuxuu ka cabsadaa cirbadda si uusan u dhimin dadkanne waxay ka cabsadaan cirbadda waxay aaminsan yihiin inay dhimanayaan ama halis ay kaga imaanayso haddii cirbad ay muddo ama mindi loo soo qaato ama mindi ay arkaan marka qaabkan loo yaqaano similar sound technique runtii aad uu muhiim u yahay wuxuuna kaa caawin karaa in aad dib u soo xasuusatid wixii markaas kugu adkaaday ereyga markaas ahaa ee meesha kugu jiray